ciidamada bilayska degmadaasi tog wajaale ayaa gacanta ku soo dhigay kalyo iyo beer qurme oo laga keenay wadanka jaarkana ee Itoobiya kaas oo si qarsoodi loo soo gelinayay jamhuuriyadda Somaliland. Haddaba ciidamada bilayska Somaliland ayaa kontaroolka galbeed waxay ku qabteen hilibka iyo kalyaha si qurme ee laga keenay wadanka jaarkana ee Itoobiya. intaasi kadib telefishinka caalamiga ee Somali News ayaa ka weydiiyay hilibkan beerka iyo kalyaha iskugu jira ee laga keenay wadanka jaarkana ee Itoobiya. waxaana warfadiyaanka uga warbixiyay gudoomiyaha degmadaasi tog wajaale mudane xaashi maxamuud cabdi, xogayaha fulinta dowladda hoose ee degmadaasi tog wajaale mudane cabdilaahi xasan samaale, iyagoo xusan ahayn hilibkii xoolaha balse laakiin uu yahay hilib doofaar oo si qarsoodi loo soo gelinayay jamhuuriyadda Somaliland, iyagoo uga digay cid kastoo isku dayda inay hilib noocaas oo kala soo geliyaan dalka. waa kuwan mas'uuliyiinta degmadaasi tog wajaale arrimahaasi arrimo kale ka hadlaya. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. ummadda waxaan uga digaynaa wax beer lagu sheegay wuxuu yahay inaan garanay oo ilaa ay xad aad u fara badan ayaa hadda jiraale Itoobiya laga soo geliyay. qoladii baashii booyada loo oran jiray doofaarka ahayd inay tahay inay wax kala tahay waxa loo wax yahay la garan maayo waana wax dhaaf ruuxooyin baa lagu qaaday ilaa Hargeysa ayaa la geeyay wajaale iska daayo ummadda waxaan uga digaynaa hadda jiraale waxyaabaha noocaas hilibka qalan ee aan waxa loo yahay la garanay inaan hadda jiraale la isticmaalin meesha lagu sitay arkaan ay noo soo sheegaan intaas soo jeer baan qabanay cidii sideetana maxkamadaha u geynay maanta ugu dambeysay baan qabanay ummadda waxaan uga digaynaa inay hilibbahaasi ama beer ha ahaada ama hilib kale ha ahaadee waxaan ogeyn wuxuu yahay cidda sideeta maxkamad baan u geynayna ummaddana waxaan u sheegaynaa inay waxyaabaha noocaasi ka digtoonaadaan ee caafimaadkooda ay ilaaliyaan. waa beer laleeyahay ma aha arrin cusub oo uguba in badan baa ayuu xagga Itoobiya ka yimaadaa saldhigga iyo qolada wasaaradda xanaanada xoolaha ilaa xeerlaalinta dhowr jeer baa arrinkooda halka aan ku galay niman document haysto wasaaradda xanaanada xoolaha waraaqa ka watanaalena waanu aragnay. hase yeeshee maanta dadkii watay lama hayo oo way baxsadeen. marka arrinkiisu arrin baaris iyo xaqiijin u baahan maaha waa ka la iskaga baxsaday wuxuu yahay la garanaynin. sidaa daraadeed maanta xaaladan aad arkaysaan waxaan uga faa'iideysanaynaa waxaan halkan baaq uga soo jeedinayaa wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha wasiir xasan gaafaadhi aniga waa macalinkaygii marka horeeya waan salaamayaa waxaan leeyahay ilaahay xilka kugu asturo. marka xiga waxaan leeyahay wasiir halkan degmada wajaale waa meel istiraatiijiya waa meesha rugta ganacsiga Somaliland xoolaha ugu badan saylada wajaale ayay ka dhoofaan oo ay ka gudbaan. sidaa daraadeed waad ku mahadsantihiin xagga talaalka iyo caafimaadka xoolaha ee dhoofaya waa la sugaa. waxaan leeyahay wasiir waxa inaga dhiman in la helo laboratorygii lagu baadhi lahaa degmada wajaale inay hesho laboratorygii lagu baadhi lahaa xoolaha la qalayo ama lagu baadhi lahaa sida beerarka iyo waxa la mid ah Itoobiya inooga soo talaabaya si caafimaadkiisa loo baadho in laboratori la helaa waa muhiim. wasiir waxaan ka codsanaynaa inaad taa xusuusnaato oo wasaaraddu baaq dheer baan ku soo jeedinaynaa inaad ka wasiir ahaan arrinkaasi degmada u soo tixgeliso si aan uga sabataxno dadkeena aan uga badbaadino. qadar cabdilaahi telefishinka caalamiga ee Somali News degmada tog wajaale.